afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya gaashaanle dhexe Qaasim Axmed Roble oo uu waramayay warbaahinta ku hadasha afka dawladda ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa kaas oo ka dhacay agagaarka hotelka City Plaza ee magaalada Muqdisho. afhayeenka ayaa sheegay in 3 qofood oo ku jiro askari booliis ah ay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ahaa sida uu sheegay mid uu fuliyay qof ismidaamiyay oo watay gaari kaas oo doonayay inuu gudaha u galo hotelka xilligaasi oo ay ku jireen mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya. isagoona intaasi ku daray in ciidamadu ay joojiyeen gaariga oo ay u diideen in uu gaaro hotelka kadibna uu isqarxiyay. Bismillahir Rahmanir Rahiim. magacaygu waa gaashaanle dhexe Qaasim Axmed Roble. caawa baarihii 8 habeenimo ayaa kooxaha argagixisada waxay ku soo weerareen bam gaari ku xiran Hotel City Plaza oo mas'uuliyiinta qaranka qayb ka mid ah ay ku shirsanaayeen. shirkii maralaala markii uu dhacay oo ay soo bilowdeen in ay soo baxaan ayaa gaariga lagu soo weeraray. markii lagu soo weeraray waxaa ka hortagay ciidanka booliiska. maralaala markii uu ka hortagay waa uu isqarxiyay, wuu fashilmay, wax dhibi ma dhicin, wax dhaawac ma jiraan, wax dhaawaca oo mas'uuliyiinta ah ma jiraan. 2 shacab iyo 1 askari ayaa ku dhaawacmay. 2 shacabka ah waa dhaawac fudud, hal askarigana ma aragtaa lug baa ka go'day. wax dhibi ma jiraan. dadweynaha waxaan u sheegayaa oo ku wargelinayaa inay isdejiyaan, wax dhibi ma jiraan. magaaladu waa nabad weeye. si kastaba qaraxani ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaan dawladda Soomaaliya ay shaacisay in ay adkaynayso ammaanka magaalada Muqdisho iyadoona goobta qaraxa uu ka dhacay ay u dhowdahay xarunta nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Maxamed Bilegeelle, Somsa TV, magaalada Muqdisho.